السلام عليكم أخيارتا kusoo dhawaada mar kale cidii aan garanayn waxa weeyaan aniga waxa la yiraahdaa GN Trades maantana waxa weeyaan the long awaited la sugayay the mental lab oo officially furmi doona insha Allah for the new year 2026 oo not only course but waa mentorship/boot camp weeyaan aan rabno where traders build discipline iyo master the market. tani waxay khusaysaa haddaad dareemaysa tradinga conceptyadoo dhan waad garanaysaa, aqoonteedii waad garanaysaa, laakiin sidii aad u adeegsan lahayd conceptyada, sidii aad u adeegsan lahayd setupyada, sidii aad u adeegsan lahayd marketka iyo fahankiisu hadduu kaa maqan yihiin weeyaan. dadka badanku waxay garanayaan aqoontii bay garanayaan, conceptkii bay garanayaan, laakiinse waxaad arkaysaa meel aanay ku habbooneyn in kolba ay gelinayaan. waxay la rafaadayaan waa cabsi, overtrading, waa dareenkooga iyo go'aanada ay qaadanayaan, taasoo badankana keenta lack of consistency oo aan joogto ahayn, sababtoo ah structure baa kaa maqan, laakiin waxaad haysataa blueprintkii, laakiin sidaad u raaci lahayd ma ogid. That's what we are here to offer as the mental labka. marka la leeyahay blueprintku is not the same as mastery, oo waxaad arki kartaa dadkoo dhan, exactly every single trader out there waxay haystaan key access to exactly the same information, same concepts gebi, laakiinse it's not the same as mastery inuu qofku waxaan uu maxay ahayd si fiican uga midho keenay. No, waxaad haysataa framework ku tusinaya maxay ahayd weekly storyga, daily storyga, waa dareenkaago aan meesha waxba khuseynayn. You have a full plan iyo full vision iyo aragti dheer baad haysataa, laakiin markaad dhisisid waxaad u baahan tahay inaad hoosta kaga bilaawdid oo aad tirahdid how am I gonna execute this, because imsa jeer ayaad accountku kaa lumay uu kaa khasaaray, adigana adoona ka warwareen, but next month waxaad arkaysaa adigoo lacag ku shubay same again and again, laakiin weligaa miyaad isweydiisay qaybta kale maxaa ayaa ka faa'iidaya kolba? adigan khasaaraya cid kale may jirtaa oo kolba faa'iidaysa? kaso waxaan kaa khasaaraya waa lacag dhaba, laakiin lacag dhabana ma heli kartaa as much as you lost or even more. That's mastery. marka taa aad u aragtid oo aad u fikirtid baad fahmi kartaa farqiga u dhexeeya qofka concept haysta iyo blueprint haysta iyo qofka mastery haysta. qofkaasi ma warwarayo, qof cabsoonaya maaha, qof loss ka fikiraya ma aha, wuu garanayaa every single day he's gonna trade. bil ka hor buu garanayaa, the hour wuu garanayaa, the day wuu garanayaa, the second wuu garanayaa. That's a full business plan. farqiga u dhexeeyana maaha farqiisa u sii weyn, waa wax xoog u yar oo nuanced ah oo laakiin u baahan fikir dheer iyo fahan qoto dheer. The path from beginner to professional bootcamp kan oo socon doona approximately 60 to 90 days. waxa weeye in the mental lab waxaad baran doontaa saad isku bedelaysid to transform your entire approach of the market, waa sidaad u arkaysid. laakiin hal shay oo kale idin ballan qaadayo, every single concept aan idin dhigayo is not gonna be something new. ma aha wax cusub, ma aha wax groundbreaking oo anigu aan la soo baxay, waa wax marketka jiray for years and years and years, many years, intaan anigu dhalan ka hor. laakiin waxaan idin ballan qaadayaa what you're gonna learn is how to read the market narrative-ka. The most important thing dadku ay arkaan waxa weeyaan waa narrative-ka, waa sheekada, waa siduu marketku u socdo, waa incentive-ka, waa sababta. Want to trade iyo which days to avoid, oo aad garanaysiin maalmo kastoo aan soo dhigo trading. dadku waxay idhahdaan maxaad maanta anu trade garanay, waan gartay sababtoo waan ku loos gareeyay adigu leedihiin, ama qaar baa le maanta trading wuu fiicnaa, is that why you entered? Also the exact reasoning maalintan gelayo aanu gelayo, maalintan avoid garaynayo aanu avoid garanayo. Proper risk management-ka dadka badankoogana risk management-ka horta run ahaantii adoona trading garanayn, with solely risk management alone ayaad ku faa'iidi kartaa, adigoo kolba maalinba nasiibinaya ama oon iibsanaya ama oon iibini. Just with proper risk management you will make money and you will be consistent with only proper risk management.
laakiin waxaan rabnaa higher chance of success. How to build unshakable discipline iyo mental strength, tan oo ku imaanaysana with experience. Simply it comes with experience. Ka tan oon idin tusinaya because you know one day you will win. One day maalinun bay qaadanaysaa inaad fahmaysid and you will win. So maanta loskayga ani waxba igama gelin. It doesn't affect me. Winkayga waxba igama gelin. It doesn't affect me. waa sida markaad shaqada tagtid miyaad faraxday waxaad tidhahdaa maanta yes lacag baan soo shaqeeyay ma waxa weeyaan it's another day at the work, nothing important. saacab sida uga hor imaan kartid iyo overtradinga iyo dareenkaad guursanaysid kolba iyo sidaad marketka u arki lahayd ana u trading lahayd as a funded trader and not as a gambler. Trading dadku waxay u arkayaan wax fast money lacag laga sameynayo, but they don't see it as business. Tani waa ganacsigaygii, waa businesskaygii, waa shirkadaydii, waa dhaqaalahaygii. You have to look at it that way. Haddii kalena waxa weeyaan meesha waxaad usoo galaysaa waxaad u malaynaysaa meel lagu khamaarayo oo lacag quick laga sameynayo. Run ahaantiina marketku ku humble garaynaya oo isaga ku tusin doona inaad fikir khaldan la soo gashay oo markuu lacagtaada kaa qaato ku tusinaya. Waxa muhiim ah inaad isku hareereysid marka ugu horeysa successkaagu siduu guul u noqdo dad aad isku fikir tihiin, isku hadaf tihiin, inaad isku surround garaysid waa very important. So on the private Discord community waxaad arkaysaa a small group of serious like-minded traders oo marketka ka xaqiiqa ah oo ka run sheegay. waxaana ku jira a couple of seasonal traders oo hadda aan sii furayo which was my private students. Hagaasoo collaboration samayn kartiin, wada hadli kartiin, market analysis samayn kartiin. Also a weekly live market analysis every Sunday. We're going to look at the market wixii dhacay iyo wixii dhici doona, live Q&A sessions oo su'aalada casharaanta aan soo dhigay because every week I will drop a lesson, casharo badan, PDF badan on the market and on the setups. We are of course cidii u baahan personal guidance iyo feedbackna me and the seasonal traders one with the chogna to support you and help you with your endeavorka. iyo talabaadna Allah waxaan isku yarahay haystay lambarka of the students, but laakiin aniga waxaan rabaa inaan ahaado true to myself, so I'm gonna choose quality over quantity. waxay noqon doonaan very very small limited numbers, not everyone can come in. sababta ugu horeysa run ahaantii waxa weeyaan I don't have much time for a lot of students, and quality nu diminish garoobaya hadduu meeshuu yahay open forum where 5, 6, 7, 8,000 ay soo galayaan. It's not the same as markaan haysto small number where wax kasta toos ay u helayaan, where they can get all the helps they want. So it's going to be a very small group of traders that I'm going to coach personally. So it's not going to be a big open for everyone. That's why we have in a sorted list. So we're going to choose only selective few. Time uma hayno la iron hanti dad fara badan exactly this time. So this is for traders who are serious, no shortcuts, no gambling, only structure, mindset iyo execution. Horta waa inaad ka fikirtay hadafkaagu waa maxay when you wanna trade ama ina wax baratid. What is your goal? Aniga my goal is inaan sameeyo a confident independent trader, point blank period. waxaan rabaa inaad fikirkaaga adu gooni ku ahaado, afkaartaadu gooni ku ahaato, analysiskaagu adiga gooni ku ahaado, oo aanad markasta afkaarta dadka kale ama inaanad search kareen maxay dadku maanta market analysiska u maleeyaan, anigu maan saxsanahay oo kolba cid aad ku tiirsanaato. So the mental lab is designed for those who want to go from a little to no knowledge to become a confident, independent and consistent trader. Someone who can analyze the market kaligi, execute trades calmly and follow a clear plan week after week, and kaasan u yaqaana an independent trader. hadafkaaguna ma aha inuu ahaado inaa signal ba idin siinaya. hadda waan idin sheegaya I'm not gonna do no signal ma sameyni because taasi lugtun bay idinka tooganaysaa, and when the course ends maxaa la fadhidaa exactly nothing of value. waqti lumis iyo lacag lumis un bay ku ahayd, oo run ahaantiin waxaa lagu qaatay inaad iska baxdid, iska shaqaysatid ama inaad energy-gaaga meel kale aad gelisid. marka ugu horeysa the first day you enter your goal should be seen uga kaaftoomaa cid kasta.
that should be your number one priority. Seen uga kaaftoomaa cid kasta. Haddaad ka daashay the same old mistakes time and time again, as leedahay there's no way out, waddo kale ma jirtaa mise waddo kale ma jirto, sirtan dadka hayaa maxay qarinayaan, masir baa jirta, and all those things. Haddaad is su-aashay, waxaan oranayaa just give it more time. Fadhi, fikir, mistakeskaaga dib u eeg. Waxaad tidhaahdaa hadda xageen ku socdaa, xageen ka imid when I started trading. Farqiga u dhexeeya waa maxay now and the beginning. Maxaa iga maqan that's making me be in the same spot. Maxaan hal meel unu fadhiyaa, maxaa sababay? Because haddaad run ahaantii su-aalahaas weydiisid, you can literally waad arki doontaa sababahaad hal meel aad u fadhiday. Waxaad oranaysaa I overtrade, okay, may structure baa iga maqan, may discipline baa iga maqan, may setup maba haysti, mentorship fiican ma haysti, macallin fiican ma haysti, ma haysti maxay support structure ma haysti. So waxyaabahaas oo dhan waa waxaad ka jawaabi karto, but it's very important inaad si daacad aad isku weydiisid oo adoon isku naxariisaneen. What is stopping me? Maxaa iga hor joogay inaan ka guuleysto? Malaha maskaxdeedana fiicneen, malaha waxan waa wax iga maskax sareeyo, malaha you think this is beyond you, oo waxaad u malaynaysaa inaad u baahan tahay IQ 200, ama waxaad aaminsan tahay inaad ka rasid, but you don't have the right tools. But today applicationku wuu furan yahay. If you want to have the right tools, your right support structure, for all those who are serious traders, waxaan rabaa inaad linkiga hoosta ku dhifatiin to apply for the mentorship. Waana, as we said, it's a limited spots because run ahaantii we don't have a time for a lot of people online. It's very busy, especially hadda sanadkii cusbaaba bilaamaya. So it's other things na aan rabada inaan nolosha aniguna sameeyo shakhsiyan, but this is my way of giving back to the community anigana, or at least hadday 1 or 2 people kasoo baxoon oo knowledge fiican ka hela oo dadkan caawiya, aniga run ahaantii intaas iga badan. So go down on the link below, apply for the mentorship. Waxaana muhiimana inaad sheegtid the reasoning iyo inaad tusisid inaad tahay qof sincere oo aana joogin only for 1 week after that na oranayo no this is too much, waxaana igu tan badan tahay, because it will be a lot run ahaantii, and you have to be prepared sida jaamacadda isku soo prepare garaysid, because 60 day 90 days bas leedahay knowledge muddo dheer lagu soo qaatay ku qaado. It's not easy. It's a lot of work. Wallahi it's a lot of work, anaba ku sii sheegaya, but aday ku khuseysaa inaad tidhaahdid shaqadan iyo hawshan may u qalantaa, yes or no, inaan noloshayda aan bedelo, or should I take another way out? That's up to you inaad qiimeysid. Laakiin aniga ahaan haddaan bilaawi lahaa, and I will get this opportunity, wallahi in the blink of an eye waan qaadan lahaa, in the blink of an eye. Taasna waa mid aniga shakhsiyan ah, but each to their own. Marka anigoo GN Trades waan idin salaamayaa, waxaan idin rajaynayaa guul iyo khayr insha Allah.